qoladan weer dawacayda weer calaan laga hadlahay waa u qalab qaadeen warigi mas'ala la weydiiyay oo fiye qowlaan musanno ama fiiha qowlaan baa la waayay laba dhalinyaraha sheekaysanaysa mid baa yar cabursan harga baahay waan dhageysanayaa wuxuu yiri maxaa ku hay inuu harga baahayo si moogta dhalinyaradu luqada kale ku wada hadlaan ma hogtahay marka wuxuu yiri kii hebel ah maanta la kulmay bluetooth ii furayo virus igu soo xawilay virus igu soo xawilay macnaha bluetooth waa baalkan wax lagu kala xawisho mobilade yani waxa weeye iskaba jirin ninku harka waa ka yar fogaan laha moogta hadii aan ku talagalay inuu hargab qabo marka afka ma la galo saaxiib seetay marka way igu sii daayay marka virus igu sii daayay waxaan u jeedaa marka war waxa maanta yaacay dad bluetooth ka xiran wallahi inaadan birin aadan sunnina ahaanin islaamna aadan ahaanin hada ma laga tuuraya badana kula tageys hala is ilaaliyo ninba dadka daweyn jiray oo dibbi buu sameyn jiray oo kutubta dibbigu inta daalacdo geeda iyo hadba wixii uu maartay kitaabku ka daalacdo buu ku daweyn jiray maalinta kitaabku daalacanayo wuxuu ku arkay xadiidka garanaysaano alhabatu sawdaa'u dawaa'un likulli daa illa sam habatu sawdaa sooma habatu sawdada bahasha la yiraahdo cudur kasta daawo ay u tahay waxaan geeri ka ahayn bali xadiidku saas aha waana macluuma waa la yaqaan xadiidka marka wuxuu u kiciyay marka alhayatu sawdaa abeesada madow dawaa'un likulli daa'im buu u kiciyay marka xadiidka waanin marka dadka daweeyo loo yimaado wax ku qaateen ma ogtahay baadi goob uu galay marka abeesa madow buu soo helay baashi uu dadkii u jarjaray dadkii daweynahay inta u maraqeeyay waraabiye marka baashi qofkii uu siiyay kow baashada waa moogtay waa sun weeyaan dadkii markii intaas qof dhinteen ba weerar lagu soo qaaday maxaa dadka ku sameeyay dadku waa daweeyay maxaa ku daweeyay hadda xadiidkii waan cuskaday oo wuxuu yiri nabiga yiri alhayatu sawdaahu dawaa'un likulli daa nabiga soo ma dhihin abeesa madow qofkii cuna bas markaas bal xageed ku arag soo bixi war meeshan alhabatu sawdaa waa ku taal xadiidkuna sidoo ahaay marka dadkii magteedii lagu leeyay Soomaa marka ninkaas habatu sawdaa iyadoo laga hadlayo muxuu ku qalab qaaday hayamado abeesa madow buu ku qalab qaaday Soomaa qoladan weer dawacayda weer calaan laga hadlayo dhurwaa u qalab qaadeen bawsiga dibkiisa way bawsadeen mooyaan ma akhriso waxana taa waa halkaas mid kale wuxuu yiri nimankan culimada moogtahay as-salaf wal khalaf labada qaybood waa kuwa wuxuu yiri khalaf dadka la yiraahdo waa diinta cadowgeeda uu yiri hadba midka u sii cilmi badan baana diinta ugu sii cadowsan oo maxaa dhacay nabigu wuxuu yiri yaxmilu hada ad-diina min kulli khalafin aduwwun lahu yiri hada xadiidku saa u galay waa garan kartaa marka meesha wado xadiidka nabiga kaleey salaatu wasalaam yaxmilu hada ad-diina min kulli khalafin uduluhu wa diinkan waxa xambaari doona dadka khalafka ah kuwooda caadiliinta waa culimada marka khalafka nabiga tazkiyay way fiican yihiin Soomaa marka uduluhu wuxuu u kiciyay aduun lahu markaas waxa uu soo baxday qof kasto khalaf oo cilmi leh inuu diinka cadow ku yahay baa soo baxday bal wixii laga hadlay ninka meesha ka dhacay fiiri bawsiga dibku leeyahay bay kamid tahay mid kale wuxuu arkay xadiidka nabiga kaleey salaatu wasalaam ka warramay oo nabigu nadara ila mir'at markuu muraayad nabigu isku fiiriyo wada wajigiisa quruxda badnaa oo arkaya ilaa muraayad isku fiirisamay wajigaada kama warqabtid markuu nabigu wajigiisa muraayad ka arko muxuu oran jiray allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi ilaahayow sida abuurideeda adu qurxisay wajigiisa quruxda loo dhameeyay buu arkaya ilaahu sidaas oo kale dabeecadeedana u wanaaji buu nabigu ku ducaysan jiray wuxuu u kiciyay marka nabigu wuxuu ahaa idaa kaana ila almar'ati idaa nadara ila almar'ati hadduu nabigu naag arko fiiriyo buu markaasaan ku ducaysan jiray ninkii marka sunnadii waan dabaqahayaa uu leeyahay suuqu soo aadahayaa hadba gabar qurxoon buu fiirinaya markaas wuxuu leeyahay allahumma ahsin khuluqi hadda sunnu dabaqayaa ninkaa sunnu noolaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadii nabigu noolaynaya marka ninkaas marka waa nooc kale ayadana bawsiga dhibaatadiisa ka mid ah haddaba marka waxaan leenahay nimankaas wixii ay bawsadeen waxay noqotay xabatu sawda iyo xayatu sawda noqotay diinta akhris loogu noqdo beentana dadka laga daayo waxa jirtay nin baa dadka u fadwoon jiray waxa la weydiinayaa marka
مسألة لو يدينا يا مسألة ما يقان ما أقاننا إنه ده مرة تذكر وحن أقان مركل لو يدي بين الشيئان روا فيه قولان يكون قبل الموت مركوح أورنجري فيه قولان بأورنجري حكم كله ويدي لما قول بقى كجرته مد واساس كي كلنا وكامس هذا وهدي لي الشيخ مسألة أساس النقطة حتى قول كي يجلس وكو مشي كي كلا وهي حقها النقطة ساس كرواي موت فيه قولان وكل شيء يسجل ولقي المسألة اللي ويدي أو فيه قولان وصنعرا أما فيها قولان باللوايا نبى فهمي إنه فشلوا كتر قلاي أيضا ما حفل سان الله فدير الشيخ أفي الله شك بير أفي الله تقدير كما شو كجر معايد أفي وجود الله شك إلهي تريتان كيس ما شك بقى كجر ويسألش موت أفي الله شك بير فيه قولان وعلى سكوها يستعمل فيه قولان فيه وعلى إلهي إنه جرى على سكوها يستعمل نك تجي موت حرد وكبه حيه لما قوله جرت علماء الإسلام كقام برهين وكذب موته هذا مركا ابن تيمية أتباع دي سوى حي قنان فيه قولان بيقنان ذلك أنه خلدان